السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa jaamacadda Alfa qaybta laabka kulliyadda caafimaadka. halkan caawa galaaskii maxaa lahayd teriyerka ee nutritionka ee Department of Health Science-ka waxaan ku soo bandhigi doonaa waxyaabo kala duwan oo ay kamid yihiin in aan soo bandhigno dhammaan practicaladii ay qabanayeen ardayda nutritionku ama arday kastoo looga baahan yahay inuu barto cilmiga nutritionka intaanan u gudbin waxyaabahan idin soo bandhigi doono waxaan jecelahay inaan ku soo dhawiyo dhinka kulliyadda maxaa lahaayay Mustafa ku soo dhawow waxaan noo farxada maanta inaanu kala qayb galo ardayda kulliyadda nutritionka semester 8 oo soo bandhigaya barnaamij caafimaad oo kulliyadooda ku saabsan oo runtii barnaamijyo taxana ay kamid ahaayeen ardaydii hore iyaguna ay laabkana soo bandhigeen barnaamijkaas oo kale waxa maanta la marayaa kulliyadda nutritionka jaamacadda Alfa oo iyaguna soo bandhigaya barnaamij ku saabsan nutrition ku saabsan runtii waxa loo baahan yahay weeye waana jaamacaddu mar walba waxay garab taagan tahay fiilasha kala duwan inay barnaamijyada soo bandhigtaan ardayda nutrition runtii waa barnaamij aad u qaaliya wadaan caawa oo kulliyadda nutrition waa kulliyad qaaliya runtii oo waxaan ku noolahay runtii hadana nafaqadeena nafaqaba inaan aqoon badan loo lahayn ee nolosheenuba caafimaadkeena ma saxsanaanay marka department nutritionka waxa dhigta arday runtii aad u firfircoon oo jaamacadda meel wacan ka jira barnaamij fiican oo soo bandhigayaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan la garab taaganahay wax kasto ay u baahan yihiin inaan ka caawino caawina runtii barnaamijkaas oo barnaamij qiimo leh waa laga faa'iideysan doonaa ardayda gobolka kale ee ku nool waxaan leenahay kulliyadda nutritionka halagu soo dhawaada jaamacadda Alfa aad bay uga dhisan yihiin haday macallimiintii noqoto haday practicalkii noqoto haday qalabkii kale agabkii kale lagu shaqeynayay noqoto oo kulliyad aad u dhisan arday isku duuba weeye waxaan leenahay fursadda gobolka looga faa'iideeyo jaamacadda Alfa waxa loo nutrition doonaya ama degree ama diploma ilaa master oo kulliyadda ka bixinaa waxaan leenahay ku soo dhawaada ardayda kala xiisaynaysa kulliyadaas mar labaad iyo mar saddexaad buu maatay dhinka kulliyaddu aad iyo aad baan uga mahad celinaa sida wanaagsan ee uu inooga sii maxaa lahayd hordhaca iyo nutritionka ay bixiso jaamacadda Alfa inta hadii aan ka imaado ka galaas ahaan waxaan introduction ama hordhac ama overview ka bixin doonaa waxa uu yahay nutrition iyo waxyaabaha looga baahan yahay ardayga nutritionistka inuu qabto muxuu nutritionku yahay muxuu inoo qabtaa faa'iidada leeg buu inoo inta markaynu ka nimaadno nutritionku waa cilmiga barashada waxa loo yaqaano nafaqada ama nafaqeynta dadka qof kasta oo doonaya inuu barto cilmigan waxa loo baahan yahay in uu maxaa lahaayay aqoon dheeraad ah u yeesho waxa loo yaqaano nutrition ku hadii aan nutrition si dhex galo nutrition wuxuu naga caawiyaa in qofku uu noqdo qof ka dhisan dhammaan qaybihii caafimaadka nutrition wuxuu ka hortagaa waxa loo yaqaano xanuunada oo wuxuu inoo sameeyaa in prevention of disease promoting waxa loo yaqaano inuu caafimaadkii kor u qaado oo qofka markastuu cuno cunto nafaqo leh wuxuu hore u qaadayaa oo sare u qaadayaa oo horumar ka sameynaya dhinaca caafimaadka sidoo kale waxa muhiim ah in qofku cuno waxa loo yaqaano balanced diet cunto isku dheelitiran taasoo keenaysa qofka in caafimaadkiisii uu sii dheeraado nolosha qofka inta uu noolaanaya ay sii dheeraato inta marka aan ka imaado waxa aan jecelahay in aan halkan uga gudbiyo xoog dhammaan cidda xiisaynaysa inay barato cilmiga nutritionku waa kan ay maxaa lahaay noloshu ay sal ku hayso waayo hadii aan nutrition jiri lahayn noloshu waxay iska noqon lahayd mid xanuunku istaba socdo waayo cuntooyinku waxa ay ka hortaga waxa loo yaqaano faafitaanka xanuunka inuu xanuunku sii socdo had iyo jeer ummadeena Soomaaliyeed ama dadkeena Soomaaliyeed imika dhibaatooyinka ugu badan ay haystaa waxa weeye hadii aynu maxaa lahaay ka eegno dhinaca maxaa lahaay xanuunada aan faafin ee loo yaqaano non communicable disease ay kamid yihiin waxa loo yaqaano maxaa lahaay wadna xanuunkii oo kale waxa loo yaqaano dhiigkarkii oo kale waxa loo yaqaano maxaa lahaay qofkii oo maxaa lahaay ku dhaco waxa loo yaqaano hepatitis xarunada waxa keena oo ay xiriirayeen wax loo yaqaan dietkii ama cuntada dadku ay cunayaan hadaba nutritionku inta badan wuxuu xooga saaraa in laga hortago xanuunada ama la yareeyo ama maxaa lahaayay loo xakameeyo si aanay xanuunadaasi maxay u sii fadhin intaasi waa introduction ku saabsan waxa loo yaqaan nutritionka ama nutritionku inuu yahay waa barashada cilmiga waxa loo yaqaan ama waa science of food inaynu barano wixii loo yaqaan maxaa lahaayay cuntooyinkii kala duwanaa ama dietkii kala duwanaa si aynu ugu maxaa lahaay daryeelo caruurteeni dadkii waaweynaa iyo dhammaan dadyoogii maxaa lahaay laga ilaalinay xanuun inta ma ka imaado waxaan si gudageli doonaa barnaamijkeena oo inoo sii socon doona imikana waxaan ku soo dhaweyn doonaa oo maxaa lahaay halka inooga sii amba qaadi doona sagal salibaan ducaale oo bal inoo sharaxi doonta noocyada kala duwan ee cuntada iyo siyaabaha loo isticmaalayo siyaabo faa'iido inoogu leeyihiin iyo dhammaan faa'iidooyinka laga helo cuntooyinka
sagal Salebaan Ducaale ayaa ku soo dhaweynaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحن كل شرح كبحين دونا عنتظر هالكن تعالى عنتظرنا سوق شرطة فروتيس and fibers عنتوين كلا يقانو فروتيس كوا عنتوين كمرها سيدا تفاحة عنبكة سبيبتها waxa kale aan ku dari doona cuntooyinka loo yaqaan fiberska cuntooyinka maxay toolay ay inta badan dalkeena wadaniga laakiin ay bulshadu aanay ku baraarujisnayn faa'iidada ay leeyihiin anigoo ku bilaabi doona cuntooyinkan fiberska ee loo yaqaan cuntooyinka baalka leh halka waxa inoo yaala 4 nooc oo inta badan dalkeena ku qaniyahay ama laga helo ay ugu horeyso cuntadan oo ah ka kooban halkan cuntada loo yaqaan galeyda iyo sareenka hadii aynu yara dul istaagno labadaas faa'iidooyinka ay u leeyihiin caafimaadkeena ama nolosheena galeyda iyo sareenku labaduba cuntooyinka loo yaqaan cerealska ama filileyda kuwaas oo aad muhiim uga ah nolosheena inta badan ka hortagaya xanuunada chroniga ama jiitama ee qofka noloshiisa oo dhan la socda waxyaabaha kale ay noo tarayaan waxa kamid ah in qofka ku sameeyaan weight loss inay u sameeyaan miisaankiisa inay dhimaan in qofka ka hortagaan qayb kamid ah kansariska sida colon cancerka oo kamid ah waxa ay inta badan faa'iidadoodu leedahay inay ka hortagaan constipationka calool istaagga inay ka hortagaan waxa aad muhiim ugu yihiin xaqii habdifaaca jirka waxa kale oo muhiim ah oo halkan aynu ku xusi doonaa qaybtan kale oo iyaduna ah galeydii iyo heedii galeyda iyo heeda oo ah laba wax oo iyaguna kamid ah cuntooyinka filileyda ama baaleyda taasoo aad muhiim uga ah iyaguna nolosheena hadii aynu gudubno xaggan oo inoo yaalaan cuntooyinkii ama waxyaabihii fruitiska ahaa ugu horeeya cinabka oo loo yaqaan grape-ka afka qalaadeed cinabku waxyaabo badan ayuu faa'iido u leeyahay oo ugu horeeyo inuu kor u qaado habdifaac jirka waxa kale oo uu sameeyaa inuu inoo sameeyo inuu naga dhimo waxaan la yiraahdo miisaankaas oo keeni kara wax la yiraahdo obesity-gaas oo wata xanuunadaas oo ay kamid yihiin sida cholesterol-ka subagowga waxaanu naqaano hypertension-ka oo dhiigkarkiya iyo diabetes mellitus oo macaankiya waxaanu gudagali doonaa itemka halkan ugu jira oo ah lawsku waa wax aad u jaban hadana wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido ay kamid tahay inuu marka hore qani ku yahay oo uu rich ku yahay fatiska soo inaga inoo qabanaya aan ahayn kuwii saturated-ka laakiin non saturated-ki ah waxa kale oo inoo taraya oo inoo fududeynaya cunitaankiisu inuu waxyaabihii macdanadii iyo wixii in la absorb gareeyo ayuu jirka u fududeynaya waxa kale oo taraya isaga qudhiisu inuu sameeyo miisaan dhimisti hadii aynu nimaadno labada shay ugu dambeeyay oo ah abalka iyo banaanaski abalku waxa uu sameeyaa blood sugarka ama levelka ay marayso sonkorta dhiigeenu ayuu yareeyaa waxa kale uu ka hortagaa khataraha ka imanaya wadna xanuunka oo kale subagow inuu imaado oo kale waxyaabahaas oo kale ayuu ka hortagaa hadaynu u gudubno muuska oo halkan noo yaalo banaana lagu yiraahdo afka qalaadeed waxa uu sameeyaa isaguna waxa uu kor u qaadaa potassiumta jirkeena ku jirta isagoo yareynayana sodiumta waayo sodiumta hadii ay badato wuxuu qofkaasi inta badan develop gareeyaa hypertension-ka muhiimadoodu waa intaas aan soo koobnay laakiin bulshadeenu kuma baraarujisna iyagoo in kasto oo ay wixii jiib yihiin ay jaban yihiin lagana helayo meel kasta ay available yihiin haddana bulshadii way moogan tahay assalaamu calaykum magacaygu waa sagal soo dhawow waxaan ahay talabixiyihii waarka xagga nafaqada soo dhaweynaya soo dhawow waan dhawey caasha la iga toddoba shay maas way shubnay caloosha iskaaga weeday xumad buu leeyahay naqas uu hayaa alla wax ka dhigaya habeer inta jira ilmo imse bilow ku jira inta 9 bilood ku jira 9 months ku jira naaska ma siisan ma wuu diiday صح إما كوحبة مسيسي وحكد يا وح قصاء صار ما تشرو وايا هاي إن هرتي عنو ما تطلع أيام كسينا يا إن وح عن سمينا أما بيريتانا أما وح دكتور كل ريفيرال والو كسينا لكن وح كسينا يا إن طلع أيام كسينا يا طلع ده سوق سابسن إن مد أديجا يمد المهابة
adigu haddii aad tahay hooyo imanka maxay toolay ilmo 9 bilood haysata waxa muhiim ah hortay in ilmahan uu helo uu xaq u leeyahay inuu helo in 6 bilood naas nuujinta ee khaaska ahayd inuu helo taasoo ay faa'iidooyinkiisa adiga iyo ilmahaba ay u leedahay ugu horeyn haddii aan adiga kugu horeeyo faa'iidada ay ku leedahay waxa weeyaan inta ugu weyn ee ay ku leedahay waxa weyn adigu ka soo kabato oo nafaqadaadi kor u soo kacdo talabaad ee ay leedahay waxa weeyaan ilmi caruurti kala koriso oo naaskan uu waa kala koriye marka aga la eegayo inagu waxaan isticmaalaa ama sidoo kalena diinteena islaamka ayna leedahay in ilmuhu xaq u leeyahay 2 sano la siiyo naaska waxa kale muhiim ah aan ku sheegi rabaa in ilmahaas aad naaska siinayso 6 bilood xaq ugu leeyahay gaara markaad siinaysana biyo haddaad ugu darto caadi laakiin naaskan ku dhiisa ayaa biyo leh caanaha naaska ayaa biyo leh caanaha naasku kaliya ma laha biyo laakiin waxay leeyihiin vitamins bay leeyihiin mineral protein bay leeyihiin dhammaan wax ka maqan ma jiro ugu horeyna ilmahan marka u horeysa ilaahay wuxuu ku siiya caano la yiraahdo dambarkaasi waxyaabo badan buu ku tarayaa adiga wuxuu ku tarayaa heelin baad qaadanaysaa wad bogsanaysaa ilmahan wuxuu tarayaa wuxuu ka helayaa hab difaaciisi ayuu xoojinayaa wax kale uu sameeynaya wad ku bogsanaysaa wad ku bogsanaysaa umul soomati wad ku bogsanaysaa marka dhasho ad caanaha siisa dambarka adigu wad ku bogsanaysaa ha markaas waxyaabo kale oo ka hortaga waxa kamid ah oo ilmahan uu leeyahay ilmaha maskaxdiisa kor waxa la garaadkiisa inuu ilmuhu garaadkiisu fiicnaado inuu ilmihii xanuunadii difaac ka yeesho imanka haddaad naaska wadi lahayd wax badan baa ismay arkeen laakiin waxa jira oo kale oo ah inaan kaala taliyo ilmahan waxa jirta 2 midba inaanad garanayn habkii loo siinayay iyo inaad khalado sidii loo dhigayay oo kale iyo haddii aad isugu soo dhadhaweyn weydo oo kale aad caaniyo wuxuu dhaxaysiiso ilmihii inuu kaba tagaba marka kala noqon laakiin mudnaanta waxa la ilmahan soo koraya inaad siiso waayo wax kastiba ilmahan maaha dhammaan hab difaaci haddii tahay mid tii dheefshiidka hadday tahay tii difaaca haddii tahay mid kasta ilmahani may u adkaan markaas waxa muhiimadda waxa la mar kasta ilmaha adigana mas'uuliyadaadu waxa weeyaan inaad siiso 6 bilood oo dhamaystirto talabaad aan iminka kaala talinaya waxa weeyaan haddii maanta aadan siinayn inaad u bilowdo cuntooyinkii lagu kabay cuntooyinkaad siinayso cuntooyinkan markaynu leenahay hal la ababiyo ilmaha waxyaabo badan bay u taraan ay ka mid tahay in ilmahani camankeena waxa ku jira murqahaas waxay noqdaan ilmaha markay calaalin waayo inay shaqayn waayaan hadhowto marka taas oo kale faa'iidadaas ku jirta markaas saasan kugu la talinay wixii dambe inaad caruurta naasku muhiimadaas oo dhan buu leeyahay hore miyaad u taqaanay taas oo faa'iido hadaba imaka wixii muhiim ah talada inaad qaadato ma jeceshay inaad talada qaadato alla bisankee takhar la ku siiyo sax waan qaadanaya hadaba talada ku dhaqan wax badan bay ka bedeli doontaa adiga naftaada iyo ubadkaagaba waxaynu kusii guda jirnaa barnaamijkii ahaa bandhiga habeenkan caawa iyo galaaska nutrition intaa marka ka imaado waxaan ku soo dhaweyn doonaa kaltuun cabdirashiid iyo xamdi cabdirashiid oo inoo soo bandhigi doono bal sida loo qaado waxa loo yaqaano cabirada kala duwan ee ay inoo soo wadaan hadduu noqdo wixii loo yaqaano haydkii iyo hadduu noqdo weydkii barnaamijkan halkan kusoo bandhigayna waxaa nutritionka haddaan in yar idinla wadaago faa'iidada uu loo leeyahay inaan ogaano weight for height-ka ama in la ogaado miisaanka iyo dherarka ilmaha waxaanu ku ogaanaynaa heerka nafaqo ee ilmahan halka uu taagan yahay sidoo kalena wuxuu inaga caawinayaa growth development-ga ilmahan koritaankiisu inuu weli yahay iyo in kale weight for height-ka waxa weeyaan inaan haysano ka wax lagu qaadayo langaska kana wax lagu qaadayaa weight-ka ka wax loo yaqaanaa height board kana wax loo yaqaanaa weight board marka waxaan doonayaa inaan assessment-ga ku sameeyno caruur daadeedu waa imisa waa 4 jir xafadada diganta xafada yadu tuulan kan waxa la qurac dheer ayuu lagu jiisi galay magaranaysaa yaa registration lagu mariyay kali mari registration waxa yeedo يعني ولو دوين قلي والله يقرأ ها ما كان على قاضي عبرات ولا قاضي أنيقا ها أنت يبغى قاضي معي
marka halkan noota namari hooy straight line inuu saarnaado ilmaha waxa la doonayaa inay cidhibtiisu halkaas saarnaato bahalka ay ku dhajisanaato saa u dhaji inaanu gacmaha saa odhan u saa yidhahda la doonayaa inuu si fiican ugu saasoo kale u noqdo marka qofka cabiraya ama qofka measurementiga sheegaya halkaasoo kale soo istaagaya wuxuu eegayaa inta uu noqday haydkiisu muwaagin laga qaado marka hore gacantiisa saasoo loo dhereerinayaa saasoo loo toosinayaa gacanta bidix baa laga qaadaya qofka waxaa la eegayaa gacantiisa bidix inay nabarriya wax leedahay haddii gubatay gacantiisu qofka cabirka laga qaadi maayo gacanta midig baa loo wareegaya marka makiinadtan waan eegay gacanteedu aad bay wacan tahay cabirkii baan saarayaa cabirkii halkaas lagaga bilaabo ilaa kaas lagu gaarsiinayaa marka cabirka soo baxa ayaa laba loo qaybinaya laba marka loo qaybiyo halkaa dhexday noqonaysa cabirkii markaa ka qaadayaa marka aad loogu geejin maayo cabirkan haddaan yara sharaxan buwaaga qaybta cas waxaa la idhahaa qofkaas aad waxaa haysa nafaqadaro qofka oo nafaqadaro dhexdhexaada qofkaasoo nafaqadaro ma hayso intaan waageeda marka soo saaray 17 waa okay waa nutritionkeeda waa okay wey ninkeeda miisaanka saaray ma garanaysaa kaayda bal waxa ka heshan iyo dabarsaa loo hayo dabarka haysa waan gartay inantaada horto xaaladda miisaanka waa la soo mariyey marka waxaa weeye iminka xaaladda inantaada waa u fiican tahay waxaad kininka iyo waxa kala siinaysaa sudhay qaar iyo warshadaas muwaagu wuxuu ka mid yahay qalabka loo adeegsado in lagu soo saaro ilmaha yar heerka nafaqadiisu ay marayso marka muwaag waa kelmado la soo gaagaabiyey mid upper arm circumference ayaa magaciisa caadiga loo yaqaan marka muwaaga sida magaciisa ka cad mid upper armka gacanta xaggeeda sare ayaa lagaga xidhaa ilmaha yar oo wuxuu soo saarayaa nafaqada reedka marayso marka sida inooga arag sida ka muuqata wuxuu leeyahay saddex midab buu leeyahay saddexda midab waa casaan oo inoo tilmaamaya haddii qofku lambarada ku yaala casaanka uu ku dhaco inuu safiir acute malnutrition yahay iyo qaybta huruudda ah oo inoo tilmaamaysa haddii lambarada qaybta huruudda ku yaala haddii qofku ku dhaco yani markan ku xidho waxay inoo tilmaamaysaa yana waxa loo yaqaano inay moderate acute malnutrition tahay haddii qaybtan greenka uu qofka lambarada ku yaala uu ku dhacana qaybta inta badan waxa loo adeegsadaa inuu qofkaas ofa yahay ama uu normal yahay markaan ku xidhayo waxa shardi ah inaan horta marka hore waxa lagu xidhaa gacanta bidixda gacanta bidixda lagu xidhaa gacanta midigta waxa loogu xidhi waayay labada gacmood way kala yara activity badan yihiin marka inta badan gacanta bidixda waayo tani mar walba hawl bay qabataa tan midigtu marka gacanta bidixda inta badan lagu xidhaa marka waxa laga xidhayaa xagga sare gacanta bidixda xaggeeda sare lagu xidhayaa marka waxa markaan ku xidhayo iska dooran maayo meeshan doono calculation baa jira marka calculationka waxaan ku calculate garanayaa halka gacanta ugu sareysa ee cuudda ugu sareysa iyo halka suxulka ugu hooseysa labada meelood baan cabiraya marka waxaan ku cabiraya wax kale ku cabiri maayo haddaan mastarad haystana mastarada u adeegsanaya haddaan mastarad haystana inta badan kan tirooyinka ku qoran baan ku cabiraya marka halkaas u sareysa ee fictanka ka soo qabanaya waxaanan ku tujinaya halka suxulka marka halka marka ku xajiyo tirada labada giftin iga soo baxda tirada kala qaybisa halkay ku dhacdo ayaan calaamadsanaya marka halka calaamada bartanka yani kala qaybinaysa laba tiro ayaan calaamad marsanaya haddaan qalin haysan qalin baan marsan haddii aanan haysana gacantan saa uga qabsanin marka waxaan imika bilaabayaa kaa jabimaysa hooyo marka sidaa markaan midboytigii markaan la soo baxo waxaan samaynaya inaan xidhitaankii sameeyo marka xidhitaanka qaabkan ugu xidhayo ilmihii yaraa gacantiisa waa tan sida maan ugu xidhaya marka xaggan baan soo gelinaya bahalkii waagii markaan xagga soo geliyo aad ugu giijin maayo aadna uga dibcin maayo marka waxaan eegayaa falaadhahaasi la soo dhow falaadhahaasi halkay ku dhacdo falaadhaas yani falaadhaasi numberkay ku dhacdo ayuu ii noqonaya qofka heer muwaagiis marka inta badan haddii ay ku dhacdo casaan numberkii casaanka ahaa uma jeegsa kaga dhacday 10.5 wixii ka yar inta badan marka waa saan 10.5 wixii ka yar inta badan haddii ku dhacdo numberka falaadha haddii ku dhacdo waxa weeye qofkaasi waa severe acute malnutrition marka saasaa lagu xidhaa aad baad mahadsantahay hooyo ilmahaaga yar nafaqadiisu waa normal wax nafaqa daraa oo haysaa ma jirto aad baad mahadsantahay السلام عليكم iska waran fiicanta ilmuhu iga xanuunsanayo nasri balqoob caafimaadka kugu dhowta sax intuu xanuunsanayo ilaa 5 cisho ka
waan eegaynaa marka haddaan ku aragno xanuunada qaar dhakhtarka dowladda tagaysa yar xanuunka haya inuu yahay edema marka waa protein energy malnutrition marka ilmaha yar haday saddex baa loo qaybiyaa mar waa 1+ marna waa 2+ marna waa 3+ marka haday 1+ tahay waa cagaho kaliya haday 2+ tahayna waa gacmaha iyo lugaha haday 3+ tahayna waa wajiga iyo gacmaha iyo lugaha operator baa leedahay marka waan eegaynaa bal tuu yahay marka waxaan eegaynaa haddii deemada markan cabirno gacmahan ka qaadana 3 sekin gudahood haday ku soo noqon weydo ilmaha yar waxa weeyaan waa safiir edema marka dhakhtarka loo gudbinaya report baa loo qoraysaa medication kan lagu siinaya hooyo warqad baan ku siinaa marka dhakhtarka loo tagaysa saas dhakhtarka ku sheegay marka dawooyinka wixii lagu kafar gareyn lahaa waxaynu ku sii siqaynaa guntii iyo gabagabadii bandhigan caawa ee ay soo qabatay jaamacadda Alpha University qaybteeda nutritionka imikana waxaan ku soo dhaweyn doonaa oo inoo soo xiri doonto macallimada u qaabilsan soo bandhigida ama carbinta ardayda inay ka carbiso dhinaca practicalka macallimadaas oo magaceeda la yiraahdo macallin Xaliimo Saalax macallin ku soo dhawow si aad loogu soo gabagabayso xafladan caawa ama bandhigan caawa ee ay dhigayaan ardayda nutritionku soo dhawow marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa ardayda qaaliga ah ee cilmigii ay barteen doonay wax ka mid ah inay bulshadooda la wadaagaan oo ay soo bandhigaan waxaan leeyahay halka ka haya horena u socdo baan leeyahay ardaydaas hambalyo kolley qodobka aan ku soo gabagabeynaya anigu hadalkii waa la soo dhameeyo hawshii oo dhane run ahaantii dee cilmigaynu barana waynu xambaaranaa laakiin ma samayno cilmigii uma bedelo ficil uma bedelo marka anigu mar koobaad iyo mar labaadba waxaan ardayda ku boorinayaa waliba ardayda fakalkan iska lehi nafaqada iska lehi inay dadka bulshada ay ku booriyaan oo barnaamijyo ka badan kuwan oo kale ay u soo bandhigaan si lifestyle-keena wax isaga bedelo ama qaab nololeedkeena waxaynu ogsoonahay maanta dee jaamacad waliba way bixisaa nutrition baa la soo baxay intaasoo nutrition baa soo qalin jabinaysa haddana dee ma jirto wax ficilahoo meesha imanaya marka waxaan idiin rajaynayaa insha allah idinka inaad noqon doontaan kuwii u horreeyey ee bulshada ku haga inay wax ka bedelaan guryahan qaab nololeedka loo isticmaalayo kolley waxaynu ogsoonahay reer waliba shub bariis iyo shub daqiiq iyo shub sonkor bay soo dhigtaan waa la soo dhigan karayaa cuntadan quruxda badan leh oo kama qaalisana qaarkood kama qaalisana iyagaaba ka jaban laakiin waxaan la garanay muhiimadda ay noo leeyihiin siday deelo sharaxaysay walaasheen mid iyo si yaro fudud baynan uga saari karnaa bulshada aynu uga saari karnaa dhammaantiin guriyaa ka timaadeen 30 arday baa tihiin 30 guri baa ka timaadeen 30 guri haddii qof waliba 30 family uu ku daro 30 family lagu daro 30 darisna lagu daro waa 90 qoys maaha 100 qoys haddii sanadkan gudihiisa aad ku tala gashaan sad diet-kooda wax uga bedeli lahaydeen iyo qaab nololeedkooda wax uga bedeli lahaydeen 100 kaas intay sii share gareynayaan intay u sii gudbinayaan la sii wadaagayaan marka guryaha laga bilaabo guri walba hala sameeyay bariiska iyo daqiiqdan bal yara xanibo oo la soo dhigo cuntadan wacan lafahayna dhisaysa maskaxda inoo dhisaysa nafaqadeena u wacan xanuuno badan oo maanta ina haysta inooga dawaa bulshadana waxaan leeyahay dee cilmiga la idila wadaagay waa in la tadbiiqiyaa oo loo bedelaa ficil loo bedelaa inaasan kusoo gabagabeynaya mar koobaad iyo mar labaadba waxaan u mahadnaqayaa ardayda hawsha is xilqaantay iyadoon cidina dabada ka wadin asalaamu calaykum waraxmatullahi